markii la igu burburkii ka hor caawa nasiib ayaad u yeelatay dadka kale waxaan aaminsanahay inaan ka farxad badanahay waayo wadankayga inta burbur badnaayo aad baan run ahaantii ugu faraxsanahay wadankayga waana jecelahay inaan markasta ka soo baxo waxaan ku noolahay Hargeysa laakiin waan jecelahay wadankayga inaan ku soo laalaabto aad baan ugu faraxsanahay ma sha Allah dib ayaa lagu qabi jiray waqtiyada la dhoofayo because of rush hour in the morning at the same time xilliyada marka qofku shaqaynsanay daytime and then xilligu Ramadan dhoofi karo that's very good Ahmed Saciid Ahmed telefishinka cable magaalada Muqdisho 27 sano kadib dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku guuleysatay in garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho ay ka dhoofto flight sida dad shacab ah diyaaradda Ocean ayaana noqotay diyaaradii ugu horeysay ee xilli habeen ka qaada garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho wasaaradda duulista hawada ee dawladda federaalka ayaana waxa ay sheegtay inay joogtayn doonto falaadyada habeenkii ee ka baxaya magaalada Muqdisho gudaha garoonka diyaaradaha waxa goobjoog ahaa wasiirka duulista iyo gaadiidka hawada ee dawladda federaalka wasiirka maaliyadda iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan labada gole ee dawladda ugu horeyntii wasiirka duulista iyo gaadiidka hawada Maxamed Cabdullaahi Omar oo halkaas ka hadlay ayaa shirkadaha diyaaradaha ka codsaday inay habeen iyo maalinba garoonka ku shaqeeyaan si shacabku ay kaga faa'iideystaan aad arkaysiin maalintii shaqada adigu annaga oo soo boganay dadkeena xamar jooga ayaa waxaan habeenkii ku hooyanaynaa Nairobi insha Allah taala iyo dadka dibadda ooga sii duulay intaba waxaan ku waaninaynaa ama ka codsanaynaa diyaaradaha kale iyagana inay talaabadaasi wax ku oolka shirkadda Ocean ay qabatay in lagu daydo shirkadaasi haddii Ilaahay ka raali noqdo oo habeenkii la kordhiyo diyaaradaha ka baxay meeshan xilligii xajkii waad aragteen shirkadda Juba iyo shirkado kale ayaa imaanayeen habeenkii marka laakiin habeenka caawa habeenkii ugu horeysay scheduled flight oo habeen kasta khamiis ah iyo habeen kasta sabtiga ah halkan ka bixi doono wayna ku mahadsan yihiin shirkadda aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinay wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo isna kamid ahaa dadkii diyaaradda raacay caawa ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in Muqdisho uu ka dhoofo xilli habeena diyaaradihii tirtirsi geliyo inuu dhiiri geliyo waxay u baahneen u sameeyo oo maanta ay tahay aan nasiib u helo inaan ka raaco halkan diyaaradda caawana Nairobi ka sii raaco meel kala tago waxa kale oo mahadcelinayaa diyaaradda lafteeda Ocean oo iyadana ka soo jawaabtay baaqa wasiirku ku baaqay ugu dambeyntii qaar kamid ah dadkii diyaaradda raacay ee shacabka ahaa ayaa dareenkooda ka hadlay